بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال من البو عالم كاد كجوجتان كنا سو دواada markaliya barnaamijkii caafimaadka oo toddobaad walba oo kale xilligan idin kaga yimaada magaalada Nairobi barnaamijkuna si gaar ah wuxuu idin kaga imanaya Isbitaalka International Health Center oo ku yaala xaafadda Soomaalida ee degtay isla ka soo horjeedka Hotel Moonlight wadada 12 dabaqa koowaad ee isbitaalku ku yaala waxaadna kala xiriiri kartaan telefoonka shaashada idin kaga muuqdo wuxuuna shaqeynaya 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalab iyo daaweyn laakiin wadanka Jarmalka qof walba oo haysta kaarka caymiska NHIF-na uu soo gaari kara Isbitaalka International Health Center oo ku yaala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Soomaalida ee degtay isla ka soo horjeedka Hotel Moonlight wadada 12 dabaqa koowaad oo isbitaalku ku yaala waxaadna ka arki kartaan markaad halkaas soo gaarto boorka uu ku sawiran yahay sawirka dhaqtarka caanka Dr. Ali Mucu Aways iyo ciwaanada iyo telefoonada Isbitaalka International Health Center iminka waxaad kala xiriiri kartaan telefoonka shaashada idin kaga muuqda oo mar walba halkan diyaar idin kugu yihiin Isbitaalka International Health Center shaqaalaha Isbitaalka International Health Center oo mar walba diyaar idin kugu inay ka qabtiraan baahiina gaarka ah meel walba adduunka dacaladeeda aad ka joogtaan ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkii caafimaadka oo toddobaad walba oo kale xilligan inaga qayb qaato oo waqtigiisa qaaligan ku bixiya dhaqtarka caanka Dr. Ali Mucu Aways oo ku taqasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada uurka jirta dhaqtarku aad uga barateen oo ka soo shaqeeyay wadamada Ingiriiska ee Jarmalka sanadadii ugu dambeeyay wuxuu ka howlgalay isbitaaladiisa ku yaala magaalada Garowe iyo Nairobi oo iminka ay kala hadlayno dhaqtarku uu ku sugan yahay dhaqtarkuna halkan wuxuu ka howlgalayaa toddobada maalmood oo halkan uu joogo asbuuc walba halkan ayuu ku sugan yahay sidoo kale dhaqtarku wuxuu qorsheenayaa hadii Bakaraal noqdo inuu gaaro isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho iminka ay ka socoto qalabaynta marka ay dhamaato qalabaynta dhaqtarku wuxuu qorsheenayaa inuu halkaas uu gaaro annaguna sida ugu dhaqsiyaha badan ay la soo socodsiin doona hadii Bakaraal noqdo toddobaad walba oo kale xilligan waxaan ku soo qaadanaa mowduuc gooniya caaw hadii Bakaraal noqdo waxaan uga hadlaynaa kaliyaha cudurrada ku dhici kara iyo sida loo daaweyn karo oo dhaqtarku halkan diyaar idin kugu yahay oo ina tusi doono mowduuca aan uga hadlayno caawa kaliyaha oo noo soo diyaariyay sawiro oo ku sharaxayo dhibaatooyinka ku dhici kara kaliyaha balse inta barnaamijku guda gelin marka hore ku soo dhow doctor barnaamijka bismillaahir rahmaanir rahiim Abdullahi aadi adban ku mahad celinaya waxaan rabaa inaan mahad celiyo Somali Cable shaqaalaheedii iyo madaxdeedii meel kasta ay joogaan inaan iraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aadi aadna waa mahadsantihiin fursadan wanaagsan aadna siinaysaan anaga oo naga wada jir ah ummadda Soomaaliyeed aan ku siinayno wacyigelin talo dhakhtarna aan ku siinayno marka xigta waxaan rabaa inaan salaamo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khaasatan reer Kenya aan waqti xaadir la joogo ayagana waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أدينا آدي يضم هالسنتها مر والبو وقت جاي غالي قاعد كوب بحيسو برامج كان ستة العاف ما دادوغا سيسو داديوغا سوماليات يدون كدعالة دي ساي نقد داونية اللي واحد داون إنسان برامج كعافيمات كغيبي وري برامج كهو إن كاجي مانا تلفزيون كسومالي كابل سيجارة مقالة نيروبي أيو برامج كود إن كاجي مانا يا وحنا إيمن كان كلا هاد لنا إسبيتال كإنترناشونال هيلث سنتر كي على مقالة نيروبي قرار حافظ الصومالي دي دكتور إسلي كسورجيت كهوتيل مونلايت وضد الله طبعا هذا إسبيتال كوكي على دبقة كواد ayaad soo gaari kartaan oo isbitaalku ku yaala waxaadna iminka kala xiriiri kartaan telefoonka shaashada idin kaga muuqda si aad ula xiriirtaan isbitaalka shaqaalaha Isbitaalka International Health Center mar walba waxay diyaar idin kugu leeyihiin 24 saacadood inay idin ka qabtiraan baahihiina gaarka meel walba adduunka aad naga daawanaysaana kala soo xiriiri kartaan telefoonka iminka shaashada idin kaga muuqda hadii aad doonaysiin isbitaalka aad soo booqatana waad la soo xiriiri kartaa si la idin kugu sheego halka rasmiga oo isbitaalku ku yaalo oo ah xaafadda Soomaalida ee degtay isla ka soo horjeedka Hotel Moonlight wadada 12 dabaqa koowaad ee isbitaalku ku yaala waxa uu shaqeynaya 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalab iyo daaweyn la keenay wadanka Jarmalka qof walba oo haysta kaarka caymiska ee NHIF-na uu soo gaari kara Isbitaalka International Health Center oo ku yaala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Soomaalida ee degtay isla ka soo horjeedka Hotel Moonlight wadada 12 sidoo kale dhaqtarka caanka Dr. Ali Mucu Aways wuxuu qorsheenayaa hadii Bakaraal noqdo inuu gaaro isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho iminka ay ka socoto qalabaynta qof walba oo ku sugan gobolada dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho way u fududahay oo dabcan way uga fududahay inuu soo gaaro isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho marka loo eego magaalada Nairobi oo iminka ay kala hadlayno bilaa soo socda ayuu dhaqtarku qorsheenayaa hadii Bakaraal noqdo inuu gaaro magaalada Muqdisho annaguna sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan idin la soo socodsiin doonaa hadii Bakaraal noqdo barnaamijkan caaw uga hadlayno kaliyaha goordhow ayaan dib isugu soo laaban doona hadii Bakaraal noqdo balse iminka waxaan jeclahay inaan idinku soo dhaweeyo qadar adeega bulshada oo ku saabsan Isbitaalka International Health Center bishaaro 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 haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid
caafimaadka dunida doctor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in doctor cali macow aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda soomaalida ee degtay islii gaar ahaan xaafadda 12 street kasoo horjeedka hotel Moonlight. bismillaahi raxmaani raxiim. dadweynaha soomaaliyeed waxaan rabaa inaanu sheego sanadkan cusub wixii ka bacda in laga helayo islii xaafadda 12 street Moonlight hotelka horjeedkiisa. ninkii danaynayo meeshaas ayuu igu soo booqan karaa. daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan Dr. Cali baa u jooga ee hamoogan Dr. Cali Macow Aweys oo ku taqasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala uur ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka Dr. Cali Macow Aweys. Dr. Cali Macow Aweys oo kasoo shaqeeyay isbitaallo badan oo ku yaala qaaradda Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska waxa uu fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu u soo saaro fiisaha dalku galka. sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka. haddaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda. waagaag daawadayaal soo noqod wanaagsan qaybihii hore barnaamijka caafimaadka ayaa daawanaysaan oo toddobaad walba oo kale xilligan idinkaaga yimaada magaalada Nairobi si gaar ah barnaamijku wuxuu idinkaaga imaanayaa isbitaalka International Health Center oo ku yaala xaafadda Soomaalida ee degtay Islii kasoo horjeedka Hotel Moonlight wadada 12 dabaqa koowaad oo isbitaalku ku yaala. dadka qaar ayaa laga yaabaa in meel kale ay ku khaldaan balse dabaqa koowaad oo isbitaalku ku yaala waxaadna kala xiriiri kartaan oo aad iminka la soo xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinkaaga muuqda si la idinkaaga qaabtiro baahihiina gaarka oo shaqaalaha isbitaalka International Health Center mar walba diyaar idinkugu yihiin 24 saacadood in haddii aad la soo xiriirtaan nambarka shaashada idinkaaga muuqda in idinkaaga qaabtiraan baahihiina gaarka. halkan markaad soo gaartaan waxa halkan diyaar idinkugu ah dhaqaatiir kala duwan oo horkacayo Dr. Cali Macow Aweys oo ku taqasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada uur ku jirta isbitaalka International Health Center oo ku yaala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Soomaalida ee degtay Islii kasoo horjeedka Hotel Moonlight oo 12aadna wuxuu shaqeynayaa 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo daaweyn laga keenay wadanka Jarmalka. qof walba oo haysta kaarka caymiska NHIF uu soo gaari karaa isbitaalka International Health Center oo mar walba diyaar idinkugu ahaa in idinka qaabtiraan baahihiina gaarka. sidoo kale dhakhtarku wuxuu qorsheynayaa haddii uu ka raali noqdo inuu gaaro isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho iminka qalabaynta ay ka socoto qof walba oo ku sugan gobolada dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho way u fududahay dabcan inay gaaraan isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho marka ay dhamaanto qalabaynta. dhakhtarkuna wuxuu qorsheynayaa bilaha inagu soo foodalay haddii uu ka raali noqdo inuu gaaro isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho annaguna sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa idin la soo socodsiin doona haddii uu ka raali noqdo. waxaadna sidoo kale aad soo gaari kartaan isbitaalka International Health Center oo ku yaala magaalada Nairobi oo iminka dhakhtarku uu ka howlgalayo. aan dib isugu soo laabano barnaamijkan uga hadlayno kaliyaha. doctor waxaan rabaa su'aasha ugu horeysa inaan ku weydiiyo calaamadaha lagu gartaa kaliya xanuunka ama cudurrada ku dhaca kaliyaha. bismillaahi raxmaani raxiim. cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba mar kastana waan ka sheekeeyaa laakiin ka daalimayno waa sheegaynaa. horta kaliyaha laba kaliyood ayay qabaan sida caadiga ah boqolkiiba 85% ama 90% baan iraado waxay qabaan laba kaliyood mid bidixda ku jirta iyo mid midigta ku jirta. marka labadaas kaliyood waxaa geli kara cudur fudud oo aad u fudud iyo cudur adag oo aad u adag. marka laba cudur ayay kaliyiin iyo cudur dhexdhexaad ah. horta balkan fudud aan ka bilowno. waxaa jira Cabdullaahi haddii marmar qaarkood intaad soo qubaysato banaanka aad soo baxdo qabow baa kugu dhici kara kaliya ay taabanayaan marka ugu horeyso marka xigta sanbabka ay taabanayaan. kaliyahaas hadday taabtaan hadda kaliyaha labada kaliyood meesha ayaa xanuun dareemaysaa kaadidii baa ku dhibaysa kaadida ma celin kartid masqusha intaad ka gaarsiiso ma sugi kartid kaadidii baa mar walba soo baxsanaysa. xanuunkaas oo kaadidana markii aad soo saarayso ee balbalayso xanuun balbal ah ay leedahay ku gubaysa waa infection baa la yiraahdaa. oo infectionkaas haddii aan lagaa daaweyn oo dhib kale uu ku keenayo dhibta waa sii weynaanaysaa. haddii laakiin markaa saas ku aragto dhakhtar u tagto oo kaadida la fiiriyo daawo lagu siin karaa sheekada meesha ku haraysaa. laakiin haddaad isku sii dayso oo bil 2 bil 3 bilood 4 bilood socoto kor bay aadaysaa xaalkaagii waxay noqonaysaa kaliyihii inay nabro gaarsiiso
ay dhibaato gaarsiiso. Keliyahana waa gabal hilib ah, gabalkaa hilib oo ilaahay ugu talagalay inuu mataqaanaa kaadadaas lagu sifeeyo ee mar walba ay shaqayso. haddii uu cudur galo dhibaato ayaa kaaga imaanaysa, xanuunkaagii marka waa weynaanaya. wixii si fudud loo daweynaya xoogaa waxay noqonaysaa in ay sii socoto. haddii aan waxba laga qabanin marka ay kor aado waxaa la yihahdaa pyelonephritis ama glomerulonephritis wax la yihahdo ayaa ku imaanaya. waa markay iyadoo fudud ay xoog yeelato. marka xigta waxaa jira markii dabeel ay kugu dhacdo ama qabow kugu dhaco adigoo qoyan ama adoon qoyanoo mataqaanaa dhididaya, dhuuntaa ku xanuunaysa. dhuun xanuun baan qabaa, wax ma laqi karo, dhuuntaa laga haya. haddaan dhakhtar u tegin oo mataqaanaa paracetamol iyo wax xanuun baabi'iye iyo aad mataqaanaa markasta qaadato, xanuunkaagii wuu kacayaa, hor buu soconayaa, marka keliyuu gaaraya. xanuunkaas keliyaha markuu gaaro waa bahalo weyaan oo la yidhaahdo streptococcus la yidhaahdo viridans. weliba waxay tagaan keliyaha iyo wadnaha. keliyaha markay tagaan asaga wuxuu noqonayaa minimal change glomerulonephritis wax la yidhaahdo. cudurkaas dee xoog buu sii yeelanayaa haddii aan lagaa daweyn. waxaaba dhici karta inay kelida joogsato shaqadeediiba, inay gabto oo labadii keliyoodba meesha ay ku haraan. waa cudurka labaad oo si fudud loo daweyn karo, laakiin haddaad isku dayso oo sii soconayo. waxaa kuu soo haray cudurka saddexaad isaga laftigiisa oo annaga weliba Soomaaliya haddaan unahay khaas no ah. hilib badan baan cunnaa, dhagxaan buu sameynayaa, keliyii baa dhagxaan galaya. nephrolithiasis baa la yidhaahdaa laftigiisa. dhagxaantaas oo aadan dareemayn oo markii uu yimaado dareenkiisa aad dareento dhibaato xoog badan ku qabanaysa. mantag xanuun, habeen dhex mantag, mar kasta xanuun, allah yay sidaasaad lahaanaysaa. labadii keliyood mise kelida dhagxaanta ku jirta ayaad cabaadaysaa. cabaad baa kaa baxaya. laftigiisa haddii aad waktiga hore la arko waa lagaa daweyn karaa, ilaa dhagaxaas waa la burburin karaa hadduuna kugu tegin. hadduu kugu tago oo dhagaxii weynaadana operation bay noqonaysaa, kelida in banaanka loo saaro. shaki kale ma jirto. cudurka afaraad ee adiga aad ku dhalan karto oo dhibaato miiran ah oo ugu dambeynna ay gelayso, hadda weliba dawaa soo baxday oo dawadaas dee lagu soo aad ka badbaadaysaa. laakiin marar badan iyo waagii hore cudurkaas wuxuu ahaa kelidihii baa joogsanayay in lagu dhaqo. dialysiska waxaa la yidhahdaa keliyaha la dhaqo, in la dhaqo ay gaaraysay. laakiin hadda dawo fiicanaa ka soo baxday, waa la daweyn karaa. cudurkaas waxaa la yidhahdaa cyst kidney cyst yaa la yidhahdaa ama cyst kidney. maxaa jacayla kelidii oo dhan ayaa waxa gelaya maaragtay burooyin biyood biyo ku jira ayaa kelidii oo dhan waad ku dhalanaysaa, laakiin hooyadaa baa kugu dhalaysa. difaaca jirkoona ka imaanaya, waxaa la yidhahdaa immune systemka ayuu ka imaanaya. marka taasu lafteeda waa dhibaato miiran. marka kuwaas laga baxo waxaa ugu daran oo dhibaatada ugu daran waa pheochromocytoma la yidhahdaa. kansar hadduu kelida galo, kelida hadduu kansar galo haddii aan markii lagaa daaweyn cabdulaahiyow sida ugu dhaqsaa badan haddaan lagaa daaweyn wuu ku dilayaa. maxaa dhacay wuu saaqayaa, si fudud buu saaqayaa. lafuu gelayaa, sanbabkuu gelayaa, maskaxduu gelayaa, jirkaagii dhan buu ku saaqayaa, beerku gelayaa. hadda meel uu dhaafaayo ma jirto, meel kasto ayuu kaa taabanaya. marka horta cudurka kelida ku dhaca intaas ayaa jirta, wax fudud iyo wax adagba. doctor waxaa sheegtay in burooyin ay galaan keliyaha. burooyinkaasi waxay u baahan yihiin ma daawooyin lagu baabi'in karaa mise waxay u baahan yihiin in qalin lagu sameeyo? cabdulaahi su-aashaan aad iyo aad bay wanaagsan tahay. ma waagii hore mise hadda? waagii hore waxay ahayd in mar kastaba feejignaan muuqato oo mar walba lagu daba socdo, mar walba lagu ogaado maxaa dhacay. burooyinkaas hadhowdii way isbedelayaan, kelida dhan bay cunaysaa, eber bay noqonaysaa, waa lagu meerayaa. laakiin hadda dawaa ka soo baxday, dawo fiican oo laga baabi'in karaaba waa lagu daweyn karaa. ilaah baa dawo leh, dawaa jirta. doctor haddii qofka keliyaha labada keliyood uu beelo oo kale ma waxay noqonaysaa muxuu dareemayaa qofkii dhibaato badan muu marayaa mise dhaqsiyo hore uga geeriyoon karaa? cabdulaahi su-aashaan lafteeda waa su-aal aad iyo aad u fiican. haddii goor hore laga arko maba u baahnid inaad gaarto heerkaas ee keliya ay fariistaan. laakiin keliya hadday fariistaan
sheekadaas waa dhammaatay meeritaana lagugu bilaabaya haddii marna la meero oo meeritaanka aad bilowda sa ugu soo noqotaa way adagta mahadsan tahay weli waxaad daawanaysaan barnaamijka caafimaadka qaybihii dhexe barnaamijka aad la socotaan oo idinkaaga imaanaya telefishinka Somali Cable si gaar ah barnaamijku wuxuu idinkaaga imaanaya isbitaalka International Health Center oo ku yaala xaafadda Soomaalida ee degtay isli ka soo horjeedka Hotel Moonlight wadada 12 dabaqa kuwaad ee isbitaalku ku yaala wuxuuna shaqeynayaa 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo daaweyn laayeen wadanka Jarmalka qof walba oo haysta kaarka caymiska NHIF-na uu soo gaari karaa isbitaalka International Health Center oo ka howlgala dhaqtarka caanka Dr. Cali Mucu Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada uurka jirta dhakhtarka aad uga barateen inuu ka soo shaqeeyo wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka sanadadii ugu dambeeyay inuu ka howlgalay isbitaaladiisa ku yaala magaalada Garowe iyo Nairobi oo iminka uu ka howlgalay dhakhtarku wuxuuna isbitaalku shaqeynaya 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo daaweyn laayeen wadanka Jarmalka sidoo kale waxa isbitaalkan International Health Center oo iminka kala hadlayno diyaar idinkuga dhaqaatiir kala duwan oo urkacaya dhakhtarka caanka Dr. Cali Mucu Aweys ama waxaad kala xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinkaga muuqdo oo mar walba diyaar idinkuga yihiin shaqaalaha isbitaalka International Health Center inay ka qaabtiraan baahihiina gaarka ah mar walba aad la soo xiriirtaan waxaad heli kartaan oo aad soo wici kartaan taleefanka shaashada idinkaga muuqda isbitaalku wuxuu ku yaalaa magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Soomaalida ee degtay isli ka soo horjeedka Hotel Moonlight wadada 12 dabaqa kuwaad oo isbitaalku ku yaala dadka qaar ayaa laga yaabaa in meel kale ay ku khaldaan balse waxaad ka arki kartaan albaabka laga soo galo sawirka yaala dhakhtarka caanka Dr. Cali Mucu Aweys halkaasi oo ay ku yaalaan ciwaanada iyo sidoo kale taleefanka isbitaalka International Health Center halkaasi oo aad kala soo xiriiri kartaan 24 saacadood habeen iyo maalin isbitaalkan uu shaqeynaya International Health Center sidoo kale dhakhtarku wuxuu qorsheynayaa hadii bakaraal noqdo inuu gaaro isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho iminka qalabaynta ay ka socoto qof walba ku sugan gobolada dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho way u fududahay dabcan inay gaaraan isbitaalka International Health Center oo iminka qalabayntiisa ay ka socoto magaalada Muqdisho annaguna sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan idin la soo socodsiin doonaa hadii ay bakaraal noqdo barnaamijka ayaad wili daawanaysaan qaybihii dhexe barnaamijka intaan idin ciyaarsiin xayeysiinta isbitaalka International Health Center iminka waxaan jeclahay in dhakhtarku uu na tuso sawirro noo soo diyaariyay uu ku sharaxayo dhibaatada ku dhici kara ama cudurrada ku dhici kara kaliyaha daawasho wanaagsan alxamdulilaahi aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa hadda waxaan rabaa inaan tuso horto kelida asalkeedba say u eg tahay markay caadi tahay kelida markay caadi tahay saasay u eg tahay kaas waa meesha kaadida ka soo baxaysa meeshaas glomerulum baa la yidhaahdaa oo kaadida lagu nadiifiyaa meeshaas pialum baa la yidhaahdaa marka kaadida marka lasoo nadiifiya halkaasay usoo degaysaa xaggaas haday usoo degto halkaasay kasoo shubmaysaa meeshaas uretra la yidhaahdaa markii halkaas ay kasoo samaysato waa tan caadiga ah mataqaana haddii caadi u shaqeynayso saasay u eg tahay kelida caadiga ah marka normal kidneyda la sheegayo waa kan oo aad arkayso intaasuu ka dhisan yahay oo aada iyo aada u complicate u ah oo aada iyo aada shaqada meesha ka soconaysa haddaad aragto inta meeshaas kasoo soconaysa oo dhiiggaas la kala meerayo oo wax walbaba laga bixinayo marka wasaqa keliya halkaas loo soo dejinayo oo la geynayo meesha hoose marka kelidaas hadday infection gaaro meeshaasaa infection gaaraya iyo meeshaas glomerulum nephritis baa la yihahdaa ama meeshaasaa gaaraya pyelonephritis baa la yihahdaa hadduu gaaro marka cabdulaahiyo waxaad arkaysaa hadda meeshaan markii uu saas soo maro markii intaas uu soo maro oo intaas soo gudbo oo halkaas soo maraya meeshaan wax ka dhib badan ilaahay ma abuurin gudaheed haddii la arko aada iyo aad hadda waxaan rabnaa inaan tusno markuu cuurku dhaco oo cudur markuu uu ku dhaco ayaan rabnaa inaan tusno hadda cabdulaahiyo waxaan rabnaa inaan tusno oo halkaas aan tusayna waxaas waa dhagxaan mataqaanaa meeshaas cudur ayaa ku jira waxaan waa burooyinkii aan ka sheekeynaynay saas uu gelayaa waxaan waa dhagxaan marka dhagxaantaas hadday galaan xanuun miiran waayo burooyinkaas haddee kelidii baa hoos isu dhacaysa oo polycystic kidney la yiraahdaa waata halkaasay ku taallaa laakiin lama arki karo polycystic kidney waa kanna waa stoneka la sheegayo iyo pyelonephritis iyo markuu kugu dhaco ay saas u eg tahay halkaas markaad arkayso mataqaana meesha kaadida ka baxaysa laftigeeda infection xoog badanaa geli kara oo mataqaana urethritis la yiraahdaa haddii halkaas u gasho marka waa dhib badan yahay cabdulaahiyo waxaan wax fudud maaha marka kelida unbaa leega hayaa bay ku leeyihiin kelida haddee wax fudud maaha kelida la-aanteeda lama noolaan karo beer la-aantiisa lama noolaan karo sambabka la-aanteeda lama noolaan karo beer iyo wadnahana la-aanteeda lama noolaan karo intaasba qofka bini aadamka waa muhiim bay u tahay cabdulaahi saad arkayso kelida wax fudud maaha dad badan aanan garanaynin kelida wax fudud bay u malaynayaan
keli la-aanteeda way dhib badan tahay. dhibka ugu badan waxa waaye cystigaas polycysty kidney hadduu kugu dhaco ama aad ku dhalato waa lagu dhashaa badiya ma kugu dhici karo laakiin waa lagu dhashaa. isaga kidneyga cystiga weligeedba wax lagu dhasha maaha wax mataqaana uu kugu dhici karo. xanuun sida dhagxaanta sida nephrolithiasis la yiraahdo ama pyelonephritis la yiraahdo ama glomerulonephritis la yiraahdo ama urethritis la yiraahdo kulli waxaas oo dhan kugu dhici karaa. qof nool aad tahay waa dhici karaa laakiin waxaa loo baahan yahay sida uu dhaqsaa badan inaad ka feejignaato aad wax ka qabato. keli la-aanteeda lama noolaan karo. ninkii og baa og kelida waa muhiim. aada u mahadsan tahay. waa rajaynayaa sawiradaasi wanaagsan iyo qaabka sharaxaada fiican aada noogu sharaxday in dad badan oo barnaamijkan daawanaya ay ka faa'iideen oo waxyaabo badan ay ka kororsadeen. waana rajaynayaa in taladaasi wanaagsan aad qaadan doontaan haddii ka raali noqdo. weli waxaad daawanaysaan barnaamijka caafimaadka qaybihii dhexe barnaamijka ayaa daawanaysaan. wuxuuna idinkaaga imaanaya isbitaalka international health center ku yaala xaafadda Soomaalidu ee degtay Islii kasoo horjeedka hotel Moonlight wadada 12aad dabaqa koowaad ee isbitaalka international health center ku yaala. waxaana shaqeynaya 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo daaweyn la keena wadanka Jarmalka. qof walba oo haysta kaarka caymiska NHIF-na uu soo gaari karaa isbitaalka international health center ku yaala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Soomaalidu ee degtay Islii kasoo horjeedka hotel Moonlight wadada 12aad dabaqa koowaad ee isbitaalka ku yaala. waxaadna ka arki kartaan marka aad soo gaartaan ama albaabka isbitaalka international health center oo aad ka arki kartaan sawirka dhakhtarka caanka Dr. Cali Macow Aweys iyo ciwaanada iyo taleefanada isbitaalka international health center. ama imika waxaad kala soo xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinkaga muuqda halkaasi oo mar walba aad ka heli kartaan shaqaalaha isbitaalka international health center si ay baahihiina gaarka idinkaga qabtiraan ama idinkugu sheegaan halka aad soo gaari kartaan oo isbitaalka international health center ku yaala oo ah magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Soomaalidu ee degtay Islii kasoo horjeedka hotel Moonlight wadada 12aad. waxaana ka howlgala dhaqaatiiro kala duwan oo horkacayo dhakhtarka caanka Dr. Cali Macow Aweys aad uga barateen inuu kasoo shaqeeyo wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka sanadadii ugu dambeeyay ka howlgalayay isbitaaladiisa ku yaala magaalada Garowe iyo Nairobi. dhakhtarka oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada uurka jirta oo uu kasoo shaqeeyay wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka sanadadii ugu dambeeyay. wuxuu ka howlgalayay isbitaalkiisa ku yaala magaalada Nairobi iyo Garowe oo iminka uu kasoo laabtay oo bil ka hor uu kasoo laabtay iminkana ka howlgalayay isbitaalkiisa ku yaala magaalada Nairobi. sidoo kale dhakhtarku wuxuu qorsheenayaa haddii bakaraal noqdo inuu gaaro isbitaalka international health center oo ku yaala magaalada Muqdisho iminka ay qalbeynta ay ka socoto. marka qalbeynta ay dhamaantana bilaha nagu soo foodale haddii bakaraal noqdo dhakhtarku wuxuu qorsheenayaa inuu gaaro isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho. qof walba oo ku sugan gobolada dalka gaar ahaan magaalada Muqdishona dabcan way u fududaan doontaa inay gaaraan magaalada Muqdisho isbitaalka international health center. anaguna sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan idiin soo ogeysiin doonaa haddii bakaraal noqdo. barnaamijka aan caawa uga hadlayno keliyaha goordhow dib ayaan isugu soo laaban doonaa haddii bakaraal noqdo. balse iminka waxaan jeclahay inaan idinku soo dhaweeyo qadar adeega bulshada oo ku saabsan isbitaalka international health center. bishaaro bishaaro bishaaro. haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid? caafimaadka dunida doctor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in Dr. Cali Macow Aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda Soomaalida ee degtay Islii gaar ahaan xaafadda 12 Street kasoo horjeedka hotel Moonlight. bismillaahi raxmaani raxiim. dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in laga helayo Islii xaafadda 12 Street Moonlight Hotel ka horjeedkiisa. ninkii danaynayo meeshaas ayuu igu soo booqan karaa. daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan Dr. Cali baa u jooga ee hamoogan Dr. Cali Macow Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala uurka jirta. waxaana goobtiisa caafimaad uu kugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka Dr. Cali Macow Aweys. Dr. Cali Macow Aweys oo kasoo shaqeeyay isbitaalo badan oo ku yaala qaaradda Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska. waxa uu fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu u soo saaro fiisaha dalku galka. sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka. haddaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaga muuqda. وهاجاك داود يالي سو نقد ونكسن قيبه دحي برنامج كعافيمات كأيا داور إنسان أو إذا كاجي إيمان يا مقالة نيروبي جرهان وهو برنامج كو إذا كاجي إيمان يا إسبيتال كإنترناشنال هيلث سنتر وكيالا
xaafadda Soomaalida ee degtay isla ka soo horjeedka Hotel Moonlight 12aad qaybtii hore barnaamijka haday ku dhaaftay oo iminka aad nagu soo birtay barnaamijka caawa waxaan uga hadlaynaa kaliyaha cudurrada ku dhaca qaybtii horena barnaamijka sida caadada oo ahayd barnaamijka oo dhakhtarku inoogu soo diyaariyay sawirro uu ku sharaxayay cudurrada ku dhici kara markay kaliyu ay jirayeen oo kale ama markay caafimaad qabaan sida ay yihiin sida uu kala duwan yihiin hadii barnaamijkan uu ku dhaafay waxaad ka daawan kartaan baraha bulshada telefishinka Somali Cable barta YouTube-ka iyo sidoo kale Facebook-ga halkaasi oo aad ka daawan kartaan Somali Cable oo aad ka heli kartaan barnaamijkan oo full hadii uu ku dhaafay isbitaalka International Health Center oo iminka kala hadlayna wuxuu shaqeynayaa 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo daaweyn laakiin wadanka Jarmalka qof walba haysta kaarka caymiska NHIF-na uu soo gaari karaa isbitaalka International Health Center aan dib ugu soo laabano barnaamijka oo aan uga hadlayno kaliyaha doctor sidoo kale waxaa jira dadka qaar aad noo sheegtay inay ku dhashaan hal kali dadkaasi waxay u baahan yihiin mar walba inay daaweyn qaataan mise waxay la mid yihiin oo kale dadka labada kaliyood leh Abdullahi su'aashan lafteeda waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah wax dhib ah oo ka iman kara male halka kali waa lagu noolaan karaa ilaa 100 sano laakiin haddii uu infection ka helo ama dhib uu ka helo waa in sida u dhaqso badan aad ka feejignaata kan labada leh uu ka fiican yahay maxaa dhacay markastaaba labadii mid hadii xoogaa wareer gasho tan kale ayuu ku soconayaa xoogaa tan kale hadana taabanaysa laakiin ilaa heerkaas uu gaaray waqti bay qaadanaysaa laakiin qofka halka kaliya leh markasta inuu feejignaado ayaa muhiim ah doctor dadka qaar waxaa jiro sida hadda Nairobi oo kale aan joogno inta badan aan la dareemin oo kale ama meelaha qabowgeed oo kale aan la dareemin dadka aan biyaha cabin saameyn intee la eeg ay kaliya u keeni karaan biyo la'aanta Abdullahi su'aashan waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah horta ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay Abdullahi oo biyaha hal lagu dadaalo maalinkii 1 litir iyo bar in la cabo hadii aadan biyaha cabin oo haraad ima hayo ama oon ma qabo kaliya loo dhaafo khatar baad ku jirtaa oo kelida way isgubaysaa ayadii baa everska dhigaysa maxaa dhacay kelida waxay u baahan tahay markastaaba waxay ku khafiifiso sunta ay daadinayso waxay ku khafiifiso ay kaadi ka dhigaysaa haddii laakiin adiga aadan biyo cabin kaadi adag oo gaduudan baa kaa baxaysa waa dhiig uu kaa daadanayo marka taas waxa laga feejignaado biyaha la cabo markasta 1 litir iyo bar ayaa ugu yar wax in la cabo loo baahan yahay haddii 1 litir cabta xataa ma dhibaayo laakiin litir iyo bar ayaan talo ku siinayaa ummadda Soomaaliyeed inay cabaan doctor cudurradan ku dhaca kaliyaha gooniya muu leeyahay mise waa cudur mar walba imaan karo Abdullahi su'aashan lafteeda waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah maxaa jira ma yaqaanaan Soomaalidan caruur badan oo cabaadayso oo mataqaana inta tag xagga tag oo oynaya markastaaba ay cunto cuni kareen hurdaynin waa kaliyahaasayta in laga hayaa dhici karta kelida meel qaas ah ma jiro caruurta ku dhici kara dadka dhexda ku dhici kara dadka waaweyn baa ku dhici kara laakiin habba ضعيف ha u ahaadeen dadka sokorta qaba kuwa dhiig karka qaba iyo dadka waaweyn oo 70 jirka iyo wixii ka bacda way u nugul yihiin oo aad bay ugu fududahay inay cudurkaas ku dhaco infectionka ku dhaco laakiin waa la wada dhayahay doctor dadka qaar cudurkan kaliya xanuunka qaba waxa laga yaabaa in dadka qaar ay cunaan xanuun baabiyo kale xanuun baabiyaas mar walba la cunayo xanuunka laga yaabaa in xoogaa wax yar uu ka istaago haddana dib uu soo kaco kaniiniga xanuun baabiyo qofkaas uu cuno saameyn intee leeg ay kaliya u keeni karaan marka kaniinigaas xanuun baabiya ama kaniiniyada kale la cunayo Abdullahi su'aashan waa tan ugu muhiimsan ma sha Allah baan ku leeyahay maxaa dhacay Soomaali waxay jeceshahay daaweyn meelaha inay ka gataan ee iska daldalaan iska cunaan horta taas u dhibaatay keenaysa daawada sideeda ma fiicna xanuun baabiyana waxa iyo daawooyinka kaleba dhibta ugu horeysa ee kugu sameynaysa waa kaliya wax gaarsiinaysa marka beerkaaga iyo ay u soo dhacdo horta kelida ayaa saameyn weyn ku yeelanaysa si fududaan rabaa inaan Soomaalida ugu micneeyo waxa kelida uu keenayo waxa markii wixii aad cunto laqdo biyo aad ku qaadato toos marka meesha ku burburto waxay tagaysaa beerka iyo keliyaha haddii keliyaha ayaa ka sumoobaya oo dhibaato ka gaaraya marka xanuun baabi'iye ama kaniiniyada saal isaga daldalayo keliyaha iyo beerka aad bay ugu daran yihiin doctor sidoo kale waxa jira qofka kaliya xanuunka qaba ama kaliya oo kale dadka xanuunka qaba ma jiraan dadka qaar oo dhaxal ahaan ugu yimaado waa yar yihiin wax dhaxal
u yimaado waa yaryahay laakiin tii aan sheegnay ayaa dhaxal ah tan ma aragti burooyinka cystiga waxa la yiraahdo ama polycystic kidney la yiraahdo ama burooyinka badan kelida ku saas u dul buuxa kuwaas ayaa dhaxal ah hooyada ayaa kugu dhalaysa waa wax lagu dhasho laga yaabo awoowaha inuu qabay iyo kii ka horeeyayba marka waxaas waa dhaxal laakiin waagii hore waxba lagama qaban karinoo kelida way isgabaysay shaqadii bay gabaysay hadda laakiin ma jiro hadda dawaa jirta dawadaas haddii lagaa siiyo way kaa joogsanaysaa oo lagaa celin karaa ilaah baa wax celin kara ilaah baa dawa iskale aada u mahadsan tahay doctore haddii qofka kelida laga bedelo oo keli kale loo geliyo mar walba ma wuxuu u baahan yahay qofkaasi in la siiyo daaweyn oo mar walba uu qaato mise haddii kelidaas loo geliyo wuu noolaan karaa oo kelidiisi caadiga ay la mid tahay cabdullaahi su-aashan lafteeda waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah ma ogi dad badan oo soomaaliyeed oo keliya loo geliyay baa jirta wayna ogyihiin haddii keli kale oo qof kale uu leeyahay oo lagu geliya ama cunugaaga ha lahaado ama qof kasta ha lahaado haddiiba adiga jirkaa uu qaado daawo joogta ah ayaa loo baahan yahay ilaa uu ka dhinto qofkaas wuxuuna u baahan yahay markasto in la ogaado lala socdo takhtar ama 2 bilood baa maqnaado ama bil ka maqnaado ama 3 bilood baa ka maqnaado laakiin waa inuu markasta dhakhtar la xiriiraa oo markasta dhakhtarka oo ogaadaa kelidiisa qofkaas inay caadi u shaqeynayso si u soconayso ay okay tahay aad ma santahay doctor keliyaha qofkii xanuunka qabo kale isbitaalka international yimaado qalabkii lagu baarayay iyo daawooyinkii wixii dhan ka heli karaa cabdullaahi su-aashan lafteeda aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa waa su-aal muhiim ah annaga wahaynaa wax kasta oo kelida lagu baaro waxaa jirta kelida markay dhibkaas oo kale ay qabto horta marka ugu horeysa waxaa ultrasound scan abdomina muhiim ah waxaa muhiim ah dhiigag oo keliyaha lagu baaro oo muhiim ah halkaasaa lagu baaraa meel kale loo diri maayo waxaa kaloo jira raajo inta lagu shubo mataqaanaa xoogaa contrast metal waxa la yidhahda raajo soo saaraysa kelida dhan iyo kulli lagu ogaanaya intaas baa lagu ogaan karaa adoon weli u baahanin city scan iyo MRI scan adoon u baahan ayaan intaasu halkan ku ogaan karnaa 100% rajaynayaa in dad badan ay maqlayaan oo ay soo gaari karaan isbitaalka International Health Center su'aasha ugu dambaysa rabin aan ku weydiiyo waxay tahay sidee cuduradan looga hortagi karaa qofka aan qabin qofka qabana maxaa tala ahaan si lahayd iyo tala ahaan guud ahaan dadka naga daawanaya telefishinka Somali Cable Cabdullaahi marka ugu horeysa adiga ayaan aad iyo aad kugu mahad celinayaa marka xigta Somali Cable shaqaalaheedii iyo madaxdeediiba inaan iraahdo rabaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin fursadan oo wanaagsan aad nasiinaysaan أنا مدة سومالية تلا دكتور أما وعيجلين أنا وسمينن مركي حتى وحن ربا إن أنا أشياء ومدة سومالية ملك استيجوجان بهرت عذر وناكسن مجرو لكن وحن مهم كلي لعنتود لما نولان كرو بير لعنتيز لما نولان كرو سبب لعنتيز لما نولان كرو وضناها لعنتين لما نولان كرو أنت سوى أركوجرته marka waxaan leeyahay haddii dhib aan qabto ha isku dayn hana sugin ilaa dhibkaaga uu ka weynaado hadhowdii qarashka lagu daaweynayna wuu ka badanayaa dhibkaagina wuu badanayaa marka waxaan leeyahay ha laga feejignaado cudur kasta cudur wanaagsan ma laha laakiin biyaha si fiican ha loo cabo kelidana mar kastaba la iska ogaado yayna dhibaato kaa gaarin xanuun baabi'iya iyo kiniiniyaha maaragtay la iska qaadanayna oo caadiga oo laga caadaystana ha la iska daayo aad u mahadsantahay waan rajaynayaa in taladaasi wanaagsan oo aad siinayso dadweynaha Soomaalida naga daawanaya telefishinka Somali Cable in ay qaadan doonaan oo ay wax badan ka anfici doonto hadii ay bukaraal noqdo guud ahaan intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaa barnaamijkii caafimaadka oo toddobaad walba oo kala xilligan idin kaga yimaada magaalada Nairobi si gaar ah barnaamijku wuxuu idin kaga imaanayay isbitaalka International Health Center oo ku yaala xaafadda Soomaalida ee degta Islii ka soo horjeedka Hotel Moonlight 12 dabaqa koowaad ee isbitaalku ku yaala waxaana shaqeynaya 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo daaweyn laga keenay wadanka Jarmalka qof walba oo haysta kaarka caymiska inay jaayifna soo gaari kara isbitaalka International Health Center oo ku yaala xaafadda Soomaalida ee degta Islii ka soo horjeedka Hotel Moonlight 12 dabaqa koowaad ee ku yaala oo aad kala xiriiri kartaan telefoonka shaashada idin kaga muuqda waxaana ka howlgala dhaqaatiir kala duwan oo horkacaya dhaqtarka caanka Dr. Cali Mucu Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada uurku jirta dhaqtarku aad uga barateen inuu ka soo shaqeeyo wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka sanadadii ugu dambeeyay wuxuu ka howlgalay isbitaaladiisa ku yaala magaalada Garowe ee Nairobi iminkana wuxuu qorsheynaya hadii bukaraal noqdo inuu gaaro isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho iminka ay qalbaynta ay ka socoto qof walba oo ku sugan gobolada dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho dabcan way u
u fududaan doontaa inay gaaraan isbitaalkiisa ku yaala magaalada Muqdisho annaguna sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan idinkula soo socodsiin doonaa haddii ay bakaraal noqdo barnaamijkii aan uga hadlaynay kaliyaha intaasi ayaanu ku soo gabagabeynayna dhanka farsamada iyo kaamirada wuxuu ahaa Naasir Muallim aniga Cabdullaahi Axmed Cali idin la socodsiinayay dhanka talasiintuna waa dhaqtarka aanka Dr. Cali Macow Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaaraan cudurrada uur ku jirta waqtigiisa qaaligana mar walba idin soo siiya si tala caafimaad oo idinkaga siiyo dadweynaha Soomaaliyeed oo hadba mowduuc gooni aan uga hadalno gudahaan intaas ayaanu ku soo gabagabeynayna intaan barnaamijkan lamid ah aan dib u kulmi doono toddobaadka soo socda inta ka horeysa waxaan idin leenahay nabadgelyo kuna soo dhawaada qadar adeega bulshada oo ku saabsan isbitaalka International Health Center bishaaro haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida doctor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in Dr. Cali Macow Aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda Soomaalida ee degtay Islii gaar ahaan xaafadda 12 Street kasoo horjeedka Hotel Moonlight bismillaahi raxmaani raxiim dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in laga helayo Islii xaafadda 12 Street Moonlight Hotel ka horjeedkiisa ninkii danaynayo meeshaas ayuu igu soo booqan karaa daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan Dr. Cali baa u jooga ee hamoogan Dr. Cali Macow Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala uur ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka Dr. Cali Macow Aweys Dr. Cali Macow Aweys oo ka soo shaqeeyay isbitaalo badan oo ku yaala qaaradda Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska waxa uu fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka haddaba wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda